maalmihii la soo dhaafay waxaa ka socotay Itoobiya musiibo dabiici ah taasi oo keensatay barakac iyo baahi badan. Aan ku bilaabay tan iyo jimcihii Itoobiya waxaa 10 mar ka dhacay dhulgariir aad u culus, qaas ahaan deegaanka Canfarta iyo qaybo ka mid ah deegaanada deriska la sida Soomaalida, Amxaarada iyo Oromada. Walow Canfarta uu ka dhacay dhulgariirku 90%. Ugu horreyn dhulgariirka ayaa bilaabmay isagoo socday ku dhawaad 30 saac. Muddo kadibna wuxuu isu bedelay biyo dhulka hoostiisa ka soo burqanaya oo sababaya inaan loo dhawaan karin aga dhulka biyahaasi ka soo burqanayaan. Maalinkii saddexaad oo maanta ahna wuxuu si toos ah dhulgariirku isugu bedelay volcano kaasi oo laga soo duubayo muuqaalo cajiib oo argagax gelinaya bulshada. Wakaaladda wararka ee VOA ayaa daabacday in dhulgariirka cabirkiisu dhan yahay 5.8 kaasi oo ku faafay dhul dhan 58 kiiloomitir. musiibadan oo khubarada ku xeel dheer ay horay u saadaaliyeen ayaa sababtay barakac aan la malaysan karin ilaa tan iyo dadku ay ka carareen beerahoodii, guryahoodii iyo xoolihii oo socon waayay.